halkan waa qubnaha TV ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena xilligan qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ceeb iyo fadooxooyin waaweyn ku soo arkay xarunta looga arrimiyo dawladda hoose ee Xamar xilli uu waayay shaqaalihiisa xaruntaasi ka shaqeynayay waxa uu wajikabax kala soo kulmay agaasimayaasha dawladaha hoose ee Xamar ka shaqeynaya xogii ugu dambeeyay iyo kulanka maanta uu la yeeshay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo uu ka soo muuqday ninka aad u dhaliilsan xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waa ninka ku magacaaban gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda waa Cali Yara Cali ayaan idin soo gudbin doonaa oo maanta ka soo muuqday kulanka ay yeesheen gudoomiye Madaali iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre qodobada kalena waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho waxaa qarax lala beegsaday sargaal si weyn u dhaliilsanaa nidaamkii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sargaalkani waxaa lagu magacaabaa Korneyl Sani Cabdulle isagoo marayay xaafadda Shaaciye ee degmada Hilwa ayaa waxaa la soo warinayaa in qaraxaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xogii ugu dambeeyay sargaalkaasi iyo iyadoo la soo warinayo in qaab siyaasadeed loo weeraray oo weerarkiisu dad ay ka dambeeyeen xogii ugu dambeeyay saaxiib yaal idin soo gudbin doona deegaanka uu dagaalka ka socdo ee Jicibana waxa gaaray xubno iyo sidoo kale xildhibaano iyo mudanayaal uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayto Cusmaan iyagoo halkaasi ka warbixiyay dagaalada ka soconay waxay soo bandhigeen hub iyo gaadiid badan oo la sheegay in laga qabsaday dagaalamayaasha Al-Shabaab sidoo kale sawir ay muujinayo in jab weyn la gaarsiiyay dagaalamayaashana waa ay soo bandhigeen xogaasi iyo kuwa kale ayaan qaybtan ku faaqidi doonaa insha Allah balse aynu ku bilaabno ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta kormeer ku tagay dawladda hoose ee Xamar waxa uu kala soo kulmay wajikabax iyo sidoo kale ceebo waaweyn halkaasi markii uu tagay waxa uu kulan gaar ah la qaatay gudoomiye Yuusuf Madaali xilli kulankaasi dibadda looga saaray gudoomiye ku-xigeenka ninka ku magacaaban waa Cali Yara Cali oo uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in looga baahnayn inuu kulankani qayb ka noqdo Cali Yara Cali oo maanta soo xaadiray dawladda hoose aqalka looga xarimiyo isagoo sheegay inuu qayb ka noqonayo kulanka uu ra'iisul wasaaruhu la qaadanayo madaxda sare ee gobolka Banaadir ra'iisul wasaaruhu waxa uu waayay shaqaalihii ka shaqeynaya gobolka Banaadir xilli la sheegay shaqaalahaasi in wax mishaar aysan qaadanin muddana ay ka maqan yihiin gobolka waxa uu sidoo kale gudoomiye Madaali faray in shaqaalihii halkan laga ceeriyay shaqo la'aantii sidoo kale mishaaraadkoodii xaquuqda ay ku lahaayeen in ay bixiso dawladda hoose ee Xamar sidoo kalena waxa uu faray in shaqaalihii ka shaqeynayay aqalka dawladda hoose ee Xamar in dib loogu soo celiyo xilli ra'iisul wasaaruhu warbixin laga siiyay shaqaalaha iyo qaabka looga bixiyay kuwa ayaa ku baxay qaab qabiil xilli ay kala qaybsanayeen shaqaale dib loo qorayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Cali Yara Cali gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo sidoo kale gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Cumar Maxamed Cumar Finish dhanka kale saadiin weegno gudoomiyaha ayaa waxa uu ugu warbixiyay howlaha hortabinta u leh ee ka soconaya caasimadda dalka sidoo kalena waxa uu gudoomiyuhu warbixin guud ka siiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya dhulal la isku haysto oo dan guud iyo sidoo kale kuwa dawladdu ay leedahay isugu jiro waxa uu sheegay in maalmaha nagu soo aadan ay dawladda hoose Xamar la wareegi doonto dhulal hadda ay ku fadhiyaan shakhsiyaad gaar ah oo la doonayo in dib loogu soo celiyo gacanta dawladda Soomaaliya dhanka kale saadiin weegno sargaal si weyn u dhaliilsanaa maamulkii hore ee Farmaajo sidoo kalena kamid ah saraakiishii badbaado qaran ayaa waxa maanta qarax lagu la eegtay xaafadda lagu magacaabo Shaaciye ee degmada Hilwa xilli uu marayay isaga iyo kolayo gaadiid oo isagu watay qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso oo meelaha fogfog laga hago ayaa waxa uu maanta ka dhacay degmada Hilwa ee gobolka Banaadir waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kalena qarax ayaa waxa ku dhaawacmay 4 askari oo ka tirsan ciidamada gaariga saarnaa ee qaraxa la beegsaday halka 2 qof oo kale oo shacabana ay ku dhaawacmeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa tagay goobta uu qaraxa ka dhacay iyagoo goobta ka qaaday meedadka iyo dadkii ku dhaawacmay waxaana muddo kooban hakad galay isku socodka halkaasi iyadoo ciidamadu markii qaraxa la beegsaday ay fureen xabada aad u tiro badan sidoo kalena xabadahaasi waxay waxyeelo ka soo gaartay dadka degan xaafadaha ka agdhow xaafadda lagu magacaabo Shaaciye oo sidoo kalena wararku qaar waxay tabanayaan sargaalkan iyo ciidamada la socday in ay u socdeen xilligan degmada cusub ama deegaanka lagu magacaabo Gubadley oo halka uu degan yahay taliyaha ciidankani hogaaminayay
oo ah taliyaha guutada afraad ee qaybta 7-aad waxaana lagu magacaabaa Korneyl Sane Cabdulle. sidoo kale waxa uu ka mid yahay saraakiisha hubabka aadka u tirada badan ku haysta magaalada Muqdisho. maamulkii laamaha amniga degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir ayaana wali ka hadlin qaraxa ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya lagula eegtay meelo ka mid ah degmadaasi, iyadoo dhowr jeer oo sidaan oo kale qaraxyo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo marayay wadadani oo marta xaafada Shaaciye ee degmada Hilwaa. xubno isugu jira xildhibaano iyo sidoo kale siyaasiyiin ayaa waxay gaareen deegaankii muddada ku dhow 10 saac ka socotay dagaalka u dhaxeeya ciidamada dowladda oo garabsanaya kuwa macaawisleyda iyo sidoo kale dagaalamayaasha Al-Shabaab. xubnahani waxaa ka mid ah xildhibaan Maxamed Cabduqaadir, xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimu iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan, iyagoo sidoo kale ka warbixiyay dagaalkii ku dhaxmaray ciidamada dowladda kuwa macaawisleyda iyo sidoo kale Al-Shabaab oo ay sheegeen in Al-Shabaab halkaasi jab weyn lagu gaarsiiyay. dhanka dowladda waxaa la soo warinayaa in halkaasi uu ku dhintay sidoo hore u sheegay gudoomiyaha degmada Buuloburte 2 askari, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 4 askari, balse khasaaruhu waxaa la soo warinayaa in intaas uu ka badan karo maadaama dagaalku la isku farsaaray muddo saacado badanna uu ka soconayo deegaanka Jicibo oo u dhow degmada Buuloburte ee gobolka Hiiraan. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan waxaa safarkiisa ku welinaya ciidamo aad u tiro badan oo la doonayay inay kaalmo ama sidoo kale caawiyaan ciidamada ku sugan deegaanka Jicibo oo dagaal farabaan la isku geystay ka dhacay maanta. sidoo kalena ciidamo kale ayaa la filayaa inay ka baxaan degmada Buuloburte ee gobolka Hiiraan, iyagoo ciidamadaasi ay hogaaminayaan xubno kale oo ka mid ah siyaasiyiinta iyo sidoo kale xildhibaanada ku matala baarlamaanka Soomaaliya dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan. sidoo kalena magaalada Beledweyne waxaa ku sugan xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolshe oo ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda dowlad goboleedka Hirshabelle. sidoo kalena waxa uu ka mid yahay xubnaha sida aadka ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. xildhibaan Sambalolshe waxa uu sidoo kale abaabul ka wadaa deegaano ka tirsan ama ku dhow magaalada Beledweyne, isagoo doonayo in deegaanadaasi uu ka abaabulo macaawisley iyo sidoo kale ciidamo la dagaaltagi kara Al-Shabaab. xilligan deegaano aad u tiro badan ayaa looga qabsaday gobolka Hiiraan xilli iyagu qudhoodu ay dagaalo ka geysanayaan gobolkaasi. maalmihii la soo dhaafana waxa ay qaraxyo isxigxiga ka geysteen gobolka caasimadda gobolka Hiiraan Beledweyne, qaraxyadaasi oo ay ku dhinteen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle iyo sidoo kale dad rayid ah oo halkaasi ka agdhawa. waxa uu burbur xoogan ka soo gaaray isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne oo madaxweynuhu Hirshabelle sheegay in isbitaalka khasaaraha soo gaaray ay tahay khasaare ka baaxad weyn oo ay kaalmeyn karin maamulka Hirshabelle. sidoo kale waxa uu sheegay in khasaaraha ka soo gaaray qaraxyadii mataanaha ay ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ay yihiin kuwa baaxad weyn, sidoo kale loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale saaxiibada taakuleeya in ay la soo gaaraan gargaar degdega. xilligan wanaaginta wararkii ugu dambeeyay aad kala socotay Qubra TV nabadi.